بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dadweynaha gobolka Sool ilaa intii aan soo galnay soo dhaweynta iyo kalgacalka iyo niyadda san ee aan ugu soo dhaweyseen sidii ragga horeyna waa idinka mahadnaqaya gamaanka aan guddoonsiisayna waa idinka mahadnaqaynaa gamaanka waa la idinka filayay waa xaradii gamaanka waa nugaal waa tirkii daraawiishta Ismaaciil mar iyo xiin firiniye la fuuli jiray mar hadaa qaranka bulsho waa hadiyad qaran waa doodimir iyo xiin tirkiisii anagu waa hadiyad qaran qof ma aha waxa madaxweynaha la siiyo qaranka leh marka waa hadiyad qaran oo qaranku leeyahay oo taariikhda gali doonta inta waxaan u gudbayaa socdaalka aniga iyo waqtiga maanta waxaan u soconaa hadii Ilaahay yiraahdo waa nabad iyo midnimo waxaynu maanta u baahanahay nabad haddii aynu ogna hareeraheenna iyo dalalka jaarka iyo caalamka waxa ka dhacaya waxa loo baahan yahay inay qolo waliba iyo dad walba jaariba halkooda nabad ku qaataan waxaynu Ilaahay uga rajaynaynaa oo ummadii oo dhan idin soo ducaynaysa annaguna aanu ku ducaynaynaa in Ilaahay gobolka Sool siiyo nabad waarta oo taama iyo barwaaqo iyo horumar gobolka Sool taariikhda Soomaalida oo dhan ayuu xagga hore kaga yaalaa dhibaatooyinka maanta haysta abaaraha raagay colaadaha jiitabay Ilaahay baynu ku baryaynaa inuu ka qaado oo gobolka Sool Somaliland iyo Soomaaliya dhan iyo geeska uu ka noqdo gobolada hormoodka si aan dhaqanka u lahaan jirtay taana magan baa leeyahay qodobka labaad waxaan u gudbayaa maanta waxyaalaha ka jira hareeraha waxaynu u baahanahay inaynu meel walba nabad ka raadino walaaladeen Soomaaliya dhammaantood waxaynu u rajaynaynaa khayr waxaanu u taagaynaa gacan nabadgeliyo oo nabad inaan ku wada noolaano Somaliland colaad cidna uma wado bariyo hore dagaal dhacay dhinac walba ahaadeen waa in laga gudbaa oo loo gudbaa horumar iyo iskaashi iyo walaaltinimo iyo is-aamin Soomaaliya waxaynu jaar ka nahay haddaynu Somaliland waa Puntland iyo Somaliland araguma maqal colaada dhexmaray dhinacnaba kuwa imika jooga waa wax lagu dhamayn karo saacada gudahood geed hoostii oo gaalna u soo gurman karin cidina isku afraafin walaalayaal isku diiri mayno oo rag maalin walba iskaga leyn mayno waxa sagaar ka birsan oo ah waa xadkii Ingiriiska iyo waa xadkii reeraha waa su'aal la dhamayn karo wax kale oo la isku diri karaa ma jiro reerna cid qasbi mayso daraatarag baa go'aan saaray oo yiri waxa loo soo wadaa in la cabriyo reer Sool war Ilaahay mooye aad reer Sool ma caburi karo taariikhday ku qoran tahay Ingiriis bay iska celiyeen Talyaani bay iska celiyeen Soomaaliya dhan bay quusgooyeen marka nin kale waa la caburinaya meel buu ka dhacaya Sool waxa loo leeyahay walaal maxay yeelaa walaal maxay seen hore ugu maraa seebaynu Soomaalida gobolkiisa ugu gurmanaa Puntland waa walaalahe waa dad goba hore ay shicibku isu gaareen ma jiro arrinta ku saabsan ciidamada xuduudu waa wax maalmo lagu dhamayn karo inaga oo Soomaali ah Puntland Somaliland Sool odayaashana dhamayn kara haddaan aqliga inaga xumayn anigu waxaan sahan nabad oo Puntland nabad baan sidaa oo Soomaaliya nabad baan sidaa oo Sool nabad baan sidaa oo horumar baynu u baahanahay waynu ka daalay colaado qabiil iyo colaado goboleed waynu ka daalay meel la saa ku gaari mayno Sool fariintaan u sidaa waxa weeye walaalayaal waxaynu u baahanahay inaynu colaadaha iyo qoriga dhigno cimilada bayna dagaalamaysa abaaraha waa aragtay soo noqonaya dhulkii la yaqaanay ee kuwanka farda ku noolaan jireen ee taariikhda iyo buugaagta markaad akhridan nimcada ahaa maanta waa abaar gabaahiira sanadkan Ilaahay mahadi roobku wuu inoo wanaagsanaa laakiin ka dambe wuxuu noqonaya garan maayo waxaynu u baahanahay caqli aynu isu geyno is-aaminaad dalka oo dhana iyo inaynu horumar samayno oo duruufaha nagu weerarsan iska celino oo la dagaalano dhibaatada deegaanka lagu keenayo walaalayaal ku horumarayno qori kala argoorsi meel ku gaari mayno argoorsi wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho dadka walaalaha ee dagaalada dhex socdaan iyagu may go'aansan dagaalamaan waa amar Ilaahay waa masiibo ku timid waa tiyo xarun ku dhaco kale iyagana waa u ducaynaynaa dhalinyaradooda waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo oo walaalayaal nin dhintay soo noolayn mayne ka nool aanu talino waxa kale oo noo gacmaha u furay shalay halkan waxa joogay boqorkii Burhaan boqorka daaradooda
waxaa ka soo horreeyey oo gacanta geliyey ina wiilwaal oo ka yimid jigjiga qof kastoo islaama iyo nin kastoo soomaaliya oo nabad ka dhalinaya gacmahan loo qabanina waa taakuleynana ma waxyaalaha qaarkood siyaasad iyo tuurtuur ma galaan dad dhimanaya iyo markay naf tahay walaalayaal waxaynu ka hormarayaan nafta muranka gobollada iyo degmooyin iyo xuduudayo waa dhamayna xataa gudaheenna degme heblaayo barkad ka qodi maysid waan ka qodayaa waa deegaankaygii war ilaahay baan wajiyay haddii degme meelaan ku heshiin karin maxaan ragga isaga leeyahay waa masiibo caqliga naga dhacday meel joogto Soomaali maanta waa masiibo caqliga naga dhacday xabadu la cararo anigu waxaan ka mid ahay raggii ugu horreeyay xabadaha iyo jabhadaha iyo wararka galay waxaan leeyahay socday oo socdo nabad iyo wax dhaama waayay insha Allah nabadaasaan loo wadaa ilaahay waxaan uga baryaa nabad taama ilaahay soo waxaan uga baryaa barwaaqo abaaraha ilaahay inuu naga jabiyo dadka beerkooda inuu burcad isu mariyo in khalkhalka iyo colaadaha iyo kala shakiga iyo magaalooyinka dhibaatada haysta in ilaahay ka saaro ka garan waxaan leeyahay waar dumarkii carruurteena ka dirana ilaa iyagu dagaalka ma galaane carruurtana mustaqbalkooda rag weeyaan baabiin raggeena waa weyne dumarkii carruurtana naxdinta iyo goblanka iyo geerida ka dayno aanu hor soo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu